السلام عليكم ورحمة الله. marka lagu soo dhawaado channelkayga. So maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay sidee murqo u dhisaa anoo hilib iska yareynaya ama sidee isku caataya anoo rabo inaan murqo dhiso. So labo waxyaabood inaan hal waqti gudahood ku qabtaa rabaa macnaheedu bilooyin ayaa rabaa inaan hilib iska rido laakiin inta hilibka iska riday inaan murqo dhisaa rabaa. So marka macquul ma tahay ma samayn karaa? Yes, waa samayn kartaa mana samayn kartid. sababtana waxay tahay sababta ognahay marka hilib iska ridaysid waxaa muhiim ah inaad cuntada cunaysa yaraysid. sidoo kale marka hilib isku daraysid waxaa muhiim ah cuntada cunaysa inaad badisid. So sidee macquul u tahay anoo cuntada mar inaan yareeyo la rabo marna kordhi la rabo sidee marka midaas u suurtagali kartaa? waxay u suurtagali kartaa hal qof kaliya. qofkaas oo ah qofka marka ugu horeysa ee jimicsiga bilaaway birqaayitaanka bilaaway. tusaale usoo qaadano gym ayaa kugu horeeya bishan ama maanta waa bilaaway tusaale ka soo qaad hilib yar ayaa ku saaran hilibkaas ayaa iska dhigi kartaa adoo hilibka iska dhigaya ayaa murqo dhisi rabtaa. soo jirkaaga weli muula qabsan inuu murqo dhiso. waxaa marka biraha markaa qaadaysid aad proteinka cunaysid jirkaaga waxaa qasab ku ahaanaysa inuu murqaha dhiso sababtoo ah weligaa maadan samaynin waxaan jirkaaga ma yaqaano. soo waa qasab murqo inay meeshaas ka yimaadaan. hilibkana iska ridaysid sababtoo ah calorie ayaa cuntada cunaysa ayaa yareysay hilibka meeshaas inuu ku dhaco waa qasab ayadana. soo halka qof kaliya macquulka u tahay ayaa waxay tahay qofkii markaas gymka ku cusub ama bir qaaditaanka cusub inuu markaas murqo dhisi karayo asoo hilib iska ridaya. murqaha u dhisayna ma noqon karaan murqo badan sababtoo ah cunto yar ayuu cunayaa. soo saawada ognaa markaa murqaheena weynaada rabno waxaa muhiim ah inaan cunno badan cunno. tusaale kale oo soo qaadana qofkii macquulka u ahayn aniga adigoo kale ama dadka sanad ama 2 sano ama bilooyin ama qof sanad iyo in ka badan gym hore usoo waday macquul maaha. qofkaas already uu la qabsay jirkiisa inuu murqo dhiso bir qaado. soo markaa cuntada yaraysid adiga waxaa qasab kugu ahaanaysa inuu hilib kaa dhaco. waxaa nasiib ku leedahay hadduu murqahaaga ay kaa dhicin haddii cuntada cunay zaid isu yaraysid. soo anagoo kale way nagu adagtahay inaan dhisno mataqaanaa murqo waqtiga hilibka iska yareynayno. so already qofkii murqo leh micnaheedu waxaa murqo kale ma dhisi kara soo hilibka iska riday unless inuu daroogo isticmaalayo. daroogadan waa naqaana steroidka waxaa mana wanaagsana qofkaas ayaa samayn kara. soo maxaan iri waa samayn kartaa waa haddii aad biraha ku cusub tahay gymka ku cusub tahay bir qaaditaanka ku cusub tahay inaad protein extra ah cuntid oo jirkaaga ku cusub yahay waa samayn kartaa. haddii aad mataqaana qof hore usoo almiiteynay bilooyin sanado isoo almiiteynay aad tahay macquul ma aha inaad hilib iska ridid muruqna aad dhistid. sababtan waxaan iri markaa muruq dhisayno hilibka waa inaan hoos u dhignaa cuntada inaan hoos u dhignaa murqaha markaa hilib markaa yareynayno markaa murqo dhisaynana waa cuntada cunayna kordhina. soo macquul ma noqon karayso inaan midaas sameyno. marka waxaa filaya inaan su-aashaas kaa jaahil bixiyey. haddii aad channelka cusubta waxaa la sameeya waa taqaanaa like subscribe peace out.